يا نفس إن لم تظفري لا تنزعي. مثلا aan ku siiyo tusaale مثلا daraasaadka la inagu hayo inagu isma ogin inagu aynu iska soconnaa مثلا mujtamaca Soomaaliga markay ka waramayaan wadan kamida wadannada reer galbeed ama ceebaa loo raadinayo ama la baadhayo ama waxa kan waxay yiraahdaan xagga shaqada marka laga eego bay yiraahdeen waa bulsho aan hawl ka lahayn waxay ku cilayaan oo ay leeyihiin ma aha dad u diyaara inay shaqeeyaan waxa lagu aqbalay lagu keenay waxa kamid ah inaad manpower noqoto shaqooyinka fudud ee dadku u baahan yihiin dadka wadanka la shaqooyinka sare haysanaya laakiin de shaqooyinkii kale hoose inaad adigu u qabato oo adna mujtamacu wax ka faa'iido laakiin uma diyaar aha ninka Soomaaliga ah waa mujtamac bay yiraahdaan aan shaqo aqoon xirfad ma leh waa mujtamac bay yiraahdaan luqada aan hore u fahmi karin waa mujtamac bay ku tilmaamaan xataa hay'adiisu bay yiraahdaan suuqa shaqada kama socoto yani marketingka reer galbeedku qof uu yaqaanaa jira ku yaroo gadxiira oo taay xidhan oo fayl yar soo xidhan oo markuu shaqo doonayo laakiin ninka Soomaaliga markuu imaado isagoo gadhkiisii wata oo de nin Soomaaliyeed ah oo isa soo taago habarta meesha joogta aanu salaamaynin hay laga yaabo inuu ku yiraahdo laakiin uu gacan qaadan maxaa yani waxay leeyihiin suuqa market suuqa shaqada kama aha bay yiraahdaan qof tanaafus ma ka geli kara hay'adiisa aan ahayn bay leeyihiin way madaahirtu iyagu waxay wax ku qiimaystaan bay kamid مثلا حاجه تعليمته waxay u arkayaan mujtamac markiisii hore aan tacliim hore wadanin wadanadu yimi bay leeyihiin dadka waaweyn Soomaaliyeed ay yimi bay yiraahdeen boqolkiiba 70 afka wadanka may baran boqolkiiba 70 bay dhahay afka wadanka may baran carruurtoodu bay dhahay boqolkiiba 80 macallin gaar ah u baahan yahay inay dawladdu macallin kala ku kabto waayo waxa ka lumay daraasaadkii iyo wixii istaba socdiyay wixii oo dhan waxay yiraahdaan gabadhoodu way ka sii aqoon liidata oo afka iyo waxan ma barato waxa laga yaabaa iskuulka inta warqad u qorato inay hesho laakiin markuu iskuulka waqtigiisa imanay daraasaadkana xadal ikhwaba igu kaalmeeyay markay timaado waqtigeedii inay uur leedahay ay tiraado sanadkan ma gali kareen sanadka dambe iga dhiga waraaq kale loo soo diro marka warqada dambe loo soo diro inay noqoto waqtiga ay umuleysay wahaluma jara waxay iyagu ku waramayaan yani kuma fiicna bay leeyihiin baabkan dhaqankooda ijtimaaciga bay yiraahdeen waa dad fawdawiyiina qaanuunka ma ixtiraamaan ballanka way ka habsaamaan wasaa'iqda ama waraaqa Allah haysto way ku cayaaraan waa musawar halku iska dhiibaya waxbu sameeynaya مثلا waxay yiraahdaan false separation ka beenbeenta iyo qaanin balay ma hadad qabiya Soomaalidu waxa haysataa waxan dadkan inay qabiyiin aanay waxba fahmin laakiin nimanka gaalada waxay naqaanaa go'aamada ma qaataan ilaa daraasadooda dhameystiraan oo isqanciyaan mooyaan sadaradeed waxay yiraahdaan separation qaldan bay galaan natiijaday gaadhaan muxuu noqdaa مثلا natiijada soo saareen waxa kamid ah u arkayaan mujtamaca Soomaaliga bay yiraahdeen waa mujtamac mughliqa oo radical ah waa mujtamac xidhan oo radicalka maxay uga jeedaan waa diiniya waa mujtamac aan la fahmi karin maxay ku sababayaan waxay ku sababayaan ko waa mujtamac xijaabka xidhan bay yiraahdaan qofka xijaabka xidhan la dumarkeena xijaabka xidhan la waxa haystaan inay noloshaba qayb ku lahayn xijaab buu xidhan yahay مثلا حجابك markay ka waramayaan inagu qadaayad waxaana ogeyn baa lagu tirinaya oo adigu wanaagaagii laakiin iyagu si ay u arkayaan مثلا waxa booliiska inta laga qaato sharci sawir leh oo xijaaban Soomaalidu waa boqolkiiba 85 yani marka booliiska la tago ee la baaro faylkiisa
إلا بارو وثائق دمر كحجابا مسلم كليد دقن هو بقولك وشان يطبع ويمرك لا يصور كان يدو صور كده سك قوية كانتا لكن تدك صور كان صدايا وذا حجاب له معناه هذا وحوي واصل مالي 85% بيدهن كوا سوا كوا كان مثلا واحد هذا اسكول إسلامية ما لها لا غفرة شنو يسديت انقف بعد كتبه هذا كوبي يسديت با صومالية بيده ومجتمع ما كان ماله صعدة شنو يسديت انقف دقة كوبي يسديت الصومالية هي ومجتمع الراديكال كو كم مقضى يجا نظرة دولة waxay taagan yihiin iskuullada bay yidhaahdeen haddii qadaayaadka ardadu ay ka dooda ee diimaha iyo siyaasadda iyo waxa ku saabsan la soo bandhigo ama laga hadlo maalan violence-ka ka yimaada had iyo goor haddii diin wax laga sheego maalan islaamka haddii wax laga sheego dadka ugu badan ee ka xanaaqa markiiba kalaaska rabshaa bay yidhaahdaan ixsaa'iyaadku waa Soomaali marka tadayunka laga hadlo walidalik baa wasaaradaha qaarkood waxay soo saareen class aska afafka loo dhigtay Soomaalidu ku jirto inaan lagaga hadli karin oo macallinku aanu ka hadal qadaayaadka diinta iyo ku saabsan waxyaabahaasi waxay yidhaahdaan maalan umamka kale bay yidhaahdaan markay ummadu yimaadaan inta badan waa la liqaa Soomaalida se waxaan aragnay bay yidhaahdeen nooc min mintidnimo قارن حجابني إنه هل كان حجابك وقاطع بينها تصالح يبرك بحنايا قبل مركي اجتماع عن حجاب بس إذن لكن هل كانوا يلاقوا حكم فهمسية حق الحجاب وقاطع وحيلاقي إنه عكس جا مركي وصعد هنيه وحق ضدك وصعد بقى حق سهر شيء ده وصعد أشياء ده صار من محيط الماما يعني وحي قاطن استنتاجات كذا مركي يسوقين مجتمع سومالي يي الوريث الشرعي للأصولية ده كان أصولية ده اللي يرادي راديكالكا ده كدحل يا حق أولها بهاشا دبت تاجنين يجيني يجا استدرادت بالغ شيء يا مستشرقين تولا متكمدين تخطبت شديين وكجو الرمي سومالي ده كلا دينا نقف قال لحين حتى أبو شيوعها هذا الليبراليزم ها وحها مسنادو مالهم بو هدنا بهاشا كجسي نبني يقولي waxay naga qaateen natiijo oranaysa waa mujtamac mutafarriqa haddaad istiraada qadaayaadkooda iyo mashaakilkooda kala xidhiidh oo kala hadal ma jirto cid matasha waa iyagu siday u arkayaan 2,000 urur oo yaryar iyo 2,000 wax iyo waxan bay wataan waxay qaateen aragti oranaysa waa mujtamac isagoo muqliqa ayaa dimuqraafigiis kobiciisa badan bay leeyihiin haddana marka loo qiimeeyo mujtamacyada kale سدرادت بمثلا إحصائيات كذا واحد الماما حافظ كم إذا إحصائيات لقى قاضي بيداده صدح بقولي كوبية طبعا عبورة مدة سنة ده كل شيء حافظ دي صدح ده بقولي كوبية طبعا كعبورة حافظ ده كل شيء مدة سنة جودي بقول إياه أفر إياه كنتم سومالا ده شيء بيداده بقول إياه تدبيه كنتم أمد كلامنا بعد شيء muxuu ku tusinayaa markaa saambulka yari haddii meel yar xaafad yar bulshada degan ee 311 qof ku dhalatay 154 uu Soomaali noqdo 157 dadkii kale oo dhan noqday waxay qaateen daraasaadkoodii iyo ihsaa'iyaadkooda marka la isku daro aragti qaldan oo muslimka iyo usuuliga laga fahamsay koow oo lagu daro akhtaadeenna iyo gafafkeenna laba oo lagu daro qaybsanaanteena iyo kala daadsanaanteena oo lagu daro xal u raadin la'aanta mushkilaadkeenna oo lagu daro faham la'aanteena iyo mintadkeenna inta marka la isku daro mujtamacaas sida ay ula dhaqmayaan ama sida ay u arkayaan muxuu yahay idinka ka jawaabi waxaan leenahay waxaad noqonaysaa mujtamac ghayru marghuub midaan la rabin ama midaan la jeclayn aqallu ma yumkin ama mid la neceb